ku-xigeenka gavanaha ismaamulka Mandera Dr. Cali Macalin Maxamuud xildhibaanka waqooyiga Mandera Meja Bashiir Cabdullaahi iyo madax kale oo Mandera ka soo jeedo ayaa ku baaqay in ammaanka lagu dadaalo. Baaqooda ayaa imaanayo kadib markii 4 qof lagu dilay galbeedka Bambu ee deegaan baarlamaaneedka waqooyiga Mandera. Dhacdadan lagu dilay 4 qof ee ka dhacday galbeedka Bambu ayaa u muuqato arrin kale oo soo cusboonaatay oo la xiriirto dagaaladii qabaliga ahaa ee halkaasi ka taagnaa. Marar badan ayaa sidan oo kale waxaa loogu baaqay ammaanka, balse dhacdooyinkan dilalka ayaa waxa ay noqdeen kuwa iska soo daba laabta. midda kale tolkii jiblada waxaan rabnaa u dirno oo baaqna waxay dhacayna waa ognahay naf haday dhimatana naf kale lagu soo celin kara. marka waxaan rabnaa tolkeena macaanay inaan dhahna inagoo jecel inaan far la qaadin oo la aarsanin ayaan rabnaa inaan u baaqna.